in xorriyadooda mar kale ay heli doonaan maxaabiistii laga soo daayay Itoobiya oo Muqdisho xabsi ku yaala si ku meel gaar ah ugu jira waxa uu ahaa hadalkii ugu wanaagsanaa ee dhagahooda ku soo dhaca tan iyo markii lagu xiray xabsi ku yaala Itoobiya oo dawladda Soomaaliya dhawaan una ila soo wareegtay siideynta maxaabiistan in ciida kadib ay dhaqan gali doonto waxa maxaabiista u sheegay wasiirka ammaanka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka qayb galayay munaasabad kooban oo ka dhacday goob ay ku xiran yihiin isla markaana dhar ciid loogu qaybinayay maxaabiistii laga soo celiyay dalka Itoobiya oo dawladda Soomaaliya ay sii deysay hore ballan qaadnay xukuumaddan hore ballan qaaday maxaabiista in marna dayaceen ay tan kamid tahay waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan gaar ahaan gudoomiyaha degmada waa beri saldhigga wuxuu ka tirsan saldhigga waa beri waaye aad iyo aad ugu mahadcelinaa mar la arkay isku hooliso mar la arkay u garab taagan tahay wax qabadka marka gudoomiyaha daan intaas ugu tago waxaan sidoo kale u mahadcelinaa janaka ciidamada booliiska oo meeshaan gacanta ku hayo oo har iyo habeen idii taageersan marka maxaabiista waxaan leeyahay hadda waxaa socdo qorshe ah hadduu Ilaahay yiraahdo in qof walba reerihiisa iyo familkiisa si lagu wareejin lahaayeen ka shaqeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo baad ciidna go'aankaas uu fuli doonaa waana sameyn doonaa qof walba waxaan rabnaa marka wixii information wax laga reebo data ah in qofka markaas munaasab cidiisa lagu salmaan rajeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in soo xal Ibrahim isku sheegay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo beerin isku meel la ku wada qadeeno anagoo faraxsan hadduu Ilaahay yiraahdo gudoomiyaasha qadan soo diyaarshay gudoomiyaha degmada waa beri Rawda Cabdullaahi Colaad waxa ay sheegtay in dadaal badan lagu bixinayo dadkan iyo siideysmadooda iyada oo tilmaantay in farxadda ciida aawadeed dadkan ay barnaamijka ku soo ciidi doonaan isla markaana dhawaan la sii deyn doono hadalkaas waxa ay raacisay in dawladda Soomaaliya ay ka dalbadeen dadkan in si farxad leh ay ku ciidaan taasina ay qasabtay in dharkan maanta loo keeno beri ciid tahay ciidii waxay noo bilaabatay sida u jeedin maanta iyadoo ay tahay maalintii ciidii hal maalin ka soke waxa maanta halkaan nala fadhiyo oo farxad aan la soo koobi karin aan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiirkii amniga wasiir Ducaale oo halkaan nala fadhiyo waxa sidoo kale nala joogo labadii gudoomiye ee degmada waa beri sida xal sheegay mataanaha la ahaa ila qaybsanayay waqtigan qiimaha leh oo ila qaybsanayay dadaalkan aan ugu jirnay sidii loo wada ciidi lahaa farxad aan soo koobi karnaa waxaan ugu faraxsanahay in wasiirkeena maanta uu u dhaqaaqay oo uu istaagay in beri aan wada ciidno wasiirka maanta wuxuu noo keenay hadiyad aad iyo aad u qiimo badan oo ciidii ka hor uu noo keenay sida aad u jeedinba halkaan mar dhow aad ku heli doontaan waxaan leeyahay wasiir waa ka gudoonay wasiirka waa maalintii loo baahnaa ciidan waa markii ugu habooneed waa markii kaliya oo aan dhihi karno Allah ilaahay aad iyo aad maanta u faraxsanahay Ibrahim Maxamed Xasan oo kamid ah maxaabiistii laga soo daayay dalka Itoobiya ayaa qaab suugaameysan u cabiraya xabsiga iyo dhibaatadii uu kala kulmay had waliba aanu daayay baa laygu diirayay bal inaan dareen qaba qalbigu soo dinqaani maayo dulucdiisa meeshaan ku wada baan dajinayay ummadow rabbigu daahirsho diinle baan ahaye dadka ugu qurxoon baan ahaye dudka nabiyaadan duqinoogu weynay markuu duubku noo wadaye allaylehe dajiira baan ahayn dawladnimo haysto jabhadihii digaalada fure diiday qaarankeenno iyagoon daryeel iyo aqoon dawladnimo qaase dadka oo la laayama ihin dawladnimo gaare digaaladii sokeeyana baaday dawladnimo laane digaaladii sokeeyana baaday dawladnimo laane dandaradii markaanagu dhacdi iyo difadii iyo hooga afrikadan u doodaynayee dawladnimadooda war inay dib noo fiiriyaan waa dadaal xumaaye diranow maxamed baa u yimid dib u habeyntaane allaylehe dadaalkow galiyo dacadnimadiisu Soomaalidu kadaaf iyo kadaaf labada daaroode inuu dawladnimaha yabay cidii ka dahneene xildhibaanadii doortay ee cododka deeqsiiyey dembi dhaaf ilaahow ka sii danaha Soomaali isku duubnideena ka roon deeq inaala siiyo haddeenoon danaha dawladnimo dib u jaleecayno inaan dooda kala sii furnaa waa daciifnimo
tixdaa gabayga aan soomaalida ku xasuusinayey waxaan xusuusinayaa in aanan qabiil waxba taraynin oo qaran mooyaane aan qabiil faa'iido lahayn oo qabiilna meel lagu gaaraynin kadib markii aan xabsiga galay oo xanuun badan aan dareemay yaa maalin maalmaha ka mid a aniga xaaskeyga oon xabsiga kaga soo tegey hadda xabsiga jirta yaa lay hor keenay in yaroo gabay ah iyo xasuusa igu soo dhacday. maxaabiistan dowladda Soomaaliya ay ka soo deysay xabsi ku yaala dalka Itoobiya ayaa hadda ku sheegaya in ay u qabaan baahi weyn la midoobida reerahoodii mar kale. Calaadin Muumin Goobjoog, Muqdisho.